السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta halkan uga mahad celinayaa shirkii aadka u balaadnaa ee bulshada reer Soomaaliland aanay u kala harin ee ka dhacay Burco ee lagu daminayay colaadii ka dhacday hawdka Burco oo runtii saameyn weyn ku yeelatay gobolka Togdheer iyo Soomaaliland guud ahaanteedba. waxaan halkan uga mahad celinayaa maadaama akademigu nabad iyo horumarku uu dhowr iyo 10 sano uu ka shaqeynayay arrimaha xalinta khilaafaadka gaar ahaan marka laba beelood ama laba reer ay meel isku dilaan oo kale oo imika aanu ka wadnay qaar badan oo ka qabanay Ceelgaabo ceelafin oo ka sameeynay galbeedka aanu ka sameeynay gobolka Sool aanu ka qabanay gobolka Saraar aanu ka qabanay oo aanu khibrad iyo waayo aragnimo aad u qoto dheer aanu leenahay sida fudud ee marka hore reeruhu isugu dhacaan iyo marka dambe sida ay u noqoto khilaaf aan la maareyn karin oo maaragtay dhimasho iyo dhaawac iyo hanti burburba sababa dadku ay ku barakacaan mashaakilaad badan ay ka yimaadaan dad badan oo aan maaragtay amniga dalka iyo dadka aan doonayna ay soo dhaxgalaan danooyin badanna ay dhex yimaadaan kadibna hawshaasi ay noqoto hawl maarin loo wadi waayo wayna soo aragnay khilaafaad badan oo caynkaas ah oo sanadayna ugu qaatay oo muddooyin badan ugu qaatay marka aqoonta iyo khibradda aan u leenahay akademigu leeyahay runtii in arrimaha xalinta khilaafaadka ayaa waxaan jeclahay inaan halkan hambaliyo uga dirno oo maaragtay aanu halkan ka hambaliyeno uqaashi salaadiintii waxgaradkii siyaasiyiintii iyo dadkii haldoorka dadka u ahaa ee Burcays u yimid ee loogu gurmaday ee hawsha wax laga qabtay hawshaasi sida loogu hortagay inay sii faafta waxay ahayd si ammaan mudan waxaan leenahay oo aan u soo jeedinaynaa bulshada halka ku dirtay in sida ay ku heshiiyeen ay ku dhaarteen ay ku fuliyaan in mushkiladda ay saa ku xaliyaan inaan khilaaf dambe halka aan ka soo noqon in soo noqnoqodkan mushkilaadkan reeraha ku salaysan soo noqonayana de aragti siyaasadeed oo dheer laga yeesho waxaan si gaar ah aan halkan runtii uga mahad celinayaa laba qof oo arrintan qayb weyn aad u weyn ka qaatay haddaanay qaybtaa ka qaadan lahayn aanay bahashaasi xirmi lahayn ama nabadaas aan xirmi lahayn waa kow madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi hawsha xil aad u weyn iska saaray waana ta ku kaliftay inuu habeen inta uu guura galo oo labada reerba la kulmo waxay ku tusaysaa sida maaragtay damqasho la lahayd ee hawsha ugu galay waxa kale soo wada mas'uuliyadii qarankana gudanaya waxa kale halkan aad uga mahad celinayaa oo iyadana isaguna ammaan mudan musharaxa madaxweyne xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo runtii hawsha isaguna u galay waxay ku tusaysaa marka siyaasiyiintu iyo danaha bulshadu markay kulmaan in khilaaf kasta oo bulsho xal loo heli karayo marka aragtiyooyinka siyaasiyiintu ay kala fogaadaanna ay adag tahay sida xal loogu helo marka aad baad mahadsantihiin ilaahay waxaan ka baryayaa in hawshaasi ay saa ku soo dhamaato shirarka kale loo balanayna si wada lagu fuliyo labada dhinacna ay saa ku fuliyaan wax mushkiladina aanay ku iman. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.